gobolada maayarada taliyayaasha ciidamada wakiilada kala duwan ee hay'adaha caalamiga ah gudoomiyayaasha maxkamadaha iyo inta fadhida ee ka soo qayb gashay shaqaalaha dawladda shicibka dhamaantii ba salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacda salaam waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda deegaanka oo shirkan inoo soo qaban qaabisay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda deegaanka Marwa Shukri oo taariikhdu xusi doonto cid kasto aqlina ay og tahay waxa ay ka qabatay deegaanka inta ay wasaaradda mahadcelin kadib ku dheeraan maayo faa'iidada deegaanku leeyahay inta halka fadhidaaba way garanaysaa waxaan ku soo koobayaa deegaanku hadaanu jirin nolol jiri mayso waa halkii aynu ku noolayn xoolana noolaan maayaan danna noolaan maayaan cibaada suura gali mayso wax gabarasha suura gali mayso ganacsi suura gali maayo isku soo wada duubo nolol oo dhabiba suura gali mayso in deegaanka la ilaaliyana waa muhiim shirkanina waa shir muhiimadiisa leh haddaba anigu waxaan oran lahaa inagu ma nihin sidii wasiirku sheegay dal warshada leh oo qashin fara badan intuu ka soo haro deegaanka ku quba ma nihin dad qiiq fara badan samada ku sii daaya ma nihin dal macdana badan qota oo deegaanka dhibta ku haya inaga deegaankeena saddex shay baaba dhib ku haya dhinac markaad ka eegto waxay nahay oo nacasnimo saddexdaas shay waxay yihiin dhuxusha qashinka iyo deegaameynta intaas oo fudud baaba inaga in hortaala dhuxushi waad aragtaan cid waliba way ka warhaysaa waliba saddexda gobol ee bariga mushkiladda ka taagan waynu ognahay sool sanaag iyo togdheerba dhamaanteena waynu ka warqabnaa waxa kaliya u baahanahay waxa weeye shuruucdii iyo adag inaynu ka soo saaro gacan birana ku qabanno xukuumad iyo shacab iyo cid walba aynu ka dagaalgalno runtiina dalkan waxa rogaya anigu hadalka waa cadeynaya waa qabyaalad maxay u rogaysaa qabyaalad gaara la soo xidhaya dhuxul baa lagu soo xidhaya taliyihii ciidanka qabanaya wasiirkii baa soo hadlaya aradeer waa miskiin oo reer yar buu ka dhashay siida waxba intaas ku shaqeeya ganacsatadii baa u imanaysa shiikhii baa u imanaya ninkii waa laga sii daynaya marka inagu arrimaha soo dhan eegayna waynu gacan bira dhuxusha ku qabanaa xagga qashinkana waynu si fiican isaga maareynaa maalintii dawada maayarka Hargeysa uu toga Hargeysa qashinka ka guriyay shaqeynayay ayaa habar madaxa lagaga jiro la wareystay habartii aad bay xigmad aan dadku lahayn bay keentay ka waran baa la yiri qashinkan waxay tiri waxba uma arko in la qabtay waayo baa la yiri waxay tiri halkaynu qashinka ka guraynaana waa dhulkeena halkaynu geynaynaana waa dhulkeena shidaal iyo xoogna waa ku baxaya ee ganacsatada qashinkan keenaysa de hal la yiraahdo joojiga oo maareeya waxay tiri waa noolaan jiray de qashin ma jiri jirin bacbaa tibi kartuun baa tibi daasad baa tibi caagad baa tibi de inta hal la joojiyo waxaynu halka ugu gurayna waxa bay naga alabay tiri moogta marka anigu waxaan ku soo koobi lahaa inaan intaas oo qodob wax ka qabano wasaaradda waxaan ka codsanayaa inay joogtayso shirarkan oo kale shirkan waa shir muhiima inta badanna ma dhaco wasiirka waxaan ka codsanayaa shirarka laga hadlayo deegaanka inuu joogteeyo dhammaanteena waxaan rajaynayaa inaanu gacanta isqabsano oo deegaankeena aynu u kacno waana idin salaamayaan oo ixtiraamaya hadalkooda dad badan u haray wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh